In uu qofka quraacdo subaxii hore ama aroortii hore waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee caafimaadka qofka iyo firfircoonadiisa maalintaas qayb ka qaata. Sidoo kale hooyada inay isticmaasho cuntooyin nafaqo leh subaxii hore ama aroortii hore ayadana waxay qayb ka qaataan barbaarinta ama korinshaha uurjiifkeeda. Sidoo kale deganaanshaheeda maskaxeedna qayb ayay ka qaataan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena. Waa walaashiin Raxma Diamond. Waxaan idinla wadaagayaa rootiinka ama qaabka u wanaagsan ee hooyada u habeyn karto quraacdeeda. Ugu horeyn hooyada waxaa wanaagsan marka ay subax hore soo kacdo inay isticmaasho biyo galaas biyo ah ama wixii kale haddii ay ku dari kartana in ka badan. Laakiin subaxii marka ugu horeyso ay soo kacdo waxaa wanaagsan in ay ku bilaabato biyo caadi ah, biyaha cad ee caadiga ah in ay cabto. Haddii ay heli kartana ay timir ku darsato. Waayo waa wax fudud. Sidoo kale tani maadaama hooyooyinka subaxii aalasaydi ay badanaa ku badan tahay lalabada iyo mataga waxaa wanaagsan subaxii hore wax yar oo fudud inay isticmaasho. Kadibna ay u dhaxaysiiso taqriiban 1 saac ama 2 saac oo kale. Intaa wixii ka dambeeyana ay isticmaasho ama ay samaysato quraac yar oo ayadana fudud oo aan badnayn. Isticmaalida cunto badan ama cunto adag waxa ay adkeynaysaa ama ay ku sii badinaysaa hooyada xaaladda lalabada ay dareemayso ama waxa loo yaqaano morning sickness ayay ku sii badinaysaa. Waxaa wanaagsan hooyada subaxii hore markay soo kacdo wax yar oo simple ah oo fudud inay isticmaasho. Sida biyahaas iyo timirtaas inay aalasaydi hore marka uu saas waayo u bariyo ee ugu horeyso ay soo kacdo inay cabto. Kadibna saacad ama 2 saac kadib ay quraac caadi ah oo normal ay samaysato. Quraacdeedu waa inay noqotaa waxyaabo nafaqo leh oo wax nafaqo ay ka helayso. Tusaale ahaan haddii ay awoodo sidaan hadda aniga aan sameynayo inay beer iyo canjeero isku isticmaasho. Waxay kaloo samaysan kartaa canjeero iyo ukun oo kale maadaama Soomaali hadaan nahay subaxii hore inta badan aan karsano canjeero. Waxay kaloo isticmaali kartaa ukunta ayadana waxay ka mid tahay waxyaabaha borotiinka leh oo uurjiifkeedana u fiican hooyadana u fiican. Waxay kaloo hooyada isticmaali kartaa kilidu waxay ka mid tahay waxyaabaha nafaqada leh sidoo kalena kor u soo qaada ama soo celiya HB-ga. Hooyada haddii ay subax hore ku quraacto way fiican tahay. Waliba ma wanaagsana sida aan soo sheegay aalasaydi hore fakta hore markay soo kacdo hooyada inay waxaas cunto. Waa in 2 saac 3 saac marka ay kasoo wareegato soo kicitaankeeda in ay isticmaasho. Subaxii hore markii ugu horeysa aad soo kacdid ha isticmaalin waxyaabo ay sokortu ku badan tahay sida shaah oo kale oo zaid u macaan ha isticmaalin. Waayo waxyaabaha macaanka ah bilaha ugu horeeyo ee uurka waxa ay ziyaadinayaan ama ay kordhinayaan lalabada iyo calaamadaha aad dareemaysid ayay kugu badinayaan. Taa beddelkeeda waxaad gashataa shaah intaad isticmaal lahayd biyaha. Sidoo kale maada waxaa jirto ku jirta shaaha oo aan u fiicnayn hooyada intay uurka leedahay. Ma wanaagsana maalintii hooyada koob shaah wax ka badan inay isticmaasho. Tusaale ahaan hooyada hadday 6 subaxnimo soo kacdo ama waxa loo yaqaan 12 subaxnimo haddii hooyada ay soo kacdo oo ay cabto biyo iyo timir. Waa inay sugtaa 1 saac 2 saac kadib. Micnaheedu waxay quraacanaysaa oo quraac fiican cunaysaa 3 saac maalmeed markii ay tahay. 3 saac oo subaxnimo ayay waxay cunaysaa quraac fudud oo weliba faa'iido leh. Sida inay isticmaasho canjeero iyo ukun, canjeero iyo beer, canjeero iyo kile. Iyo wixii kaloo markaas nafaqo leh. Kadibna waa inay sugtaa hooyada 1 saac kadib. Xilliga ay isticmaalaysa 3 saac tahayna maahan inay wax badan ay qaadato. Wax yar oo fudud inay hooyada ay cunto oo aan badnayn. Kadibna ay sugto 1 saac ama 2 saac kadib ayna cunto wax kale oo fudud. Xilliga 5 saac subaxnimo marka ay tahay ayay cuni kartaa fruit yar sida xabad moos ah, xabad cambe ah, qara yar ee ay jarjaratay, wax yar oo simple ah ama salad ee diyaarsata ayay isticmaali kartaa si ay ugu sugto qadada. Muhiimadeenu ma ahan hooyada inay isticmaasho wax badan ee zaid uga dheregto laakiin muhiimadeenu waxa ay tahay hooyada inay qaadato wax yar oo simple ah. Calaamadaha ay dareemayso ee bilaha ugu horeeyo ee uurkan aan ku badinaynin faa'iidana u leh. Waliba subaxii hore hooyooyinka mostly ama badankood waxa ay calaamadaha dareemaan waa subaxii hore.
soo xilligaas ayaa la rabaa hooyada inay feejignaato oo ay ku dadaasho waxyaabo nafaqo leh saas ay tahayna aan ku badinaynin calaamadaha.